munaasabadan oo lagu daahfurayay xeer nidaamyaha lagu maamulayo baabuurta qaada culayska xad dhaafka ah ayaa waxay ka qabsantay xarunta gobolka Saaxil ee Berbera. munaasabadan waxaa ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Saaxil duqa Berbera iyo sidoo kale gudoomiyaha hay'adda wadooyinka iyo saraakiil ka kala socotay ciidanka booliiska gaar ahaan ciidanka ilaalinta nabadgelyada wadooyinka iyo saraakiil iyagu ka socday ururada gaadiidleyda kala duwan ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. munaasabadan oo ka qabsantay hotel Barwaaqo ee Berbera ayaa halkaasi ugu horeyn waxaa hadal ka soo jeediyay kana warramay ujeedada munaasabadani Cabdicasiis Xirsi Warsame waxaana hadaladiisii kamid ahaa marka koobaad hay'adda horumarinta wadooyinka Soomaaliland iyo hay'adda GIZ ayaa waxay iska kaashanayaan barnaamij ku saabsan sidii loo dayactiri lahaa wadooyinka hadda aynu haysano isla markaana kuwa cusub insha Allah loo sameyn lahaa qaybahaas ayuu mashruucu ka shaqeeyaa waxa kale mashruucu leeyahay oo ah qaybta ugu weyn ee maanta u fadhino in sharci loo sameeyo gaadiidka qaada rarka xadaafka sharci lagu xakameeyo oo markaa lagula dhaqmo in loo sameeyo sababta taa loo sameeyana waxa weeyaan gaariga qaada rarka xadaafku mashaakilaad fara badan oo meelo badan gala ayuu leeyahay mas'uuliyiin iyaguna ka socday hay'adda GIZ iyo sidoo kale mas'uuliyiin iyaguna ka socday ururka ay ku midoobeen gaadiidleyda waaweyn ee Tawafiiq ayaa soo dhaweeyay kulankan lagaga hadlayo sidii loo maamuli lahaa baabuurta qaada culayska xad dhaafka ah ee wadooyinka dalka marta. waxaa laga yaabaa inuu helo container 30 tana uu yiraahdo war waan qaadaya farmarnaantii iska joog baan diidayaa hal la igu raro waxaan isla garanay inay ka go'an tahay un gaarigiisa niman ganacsato la yiraahdo haddii aad tiraahdo war gaadiidkan dee laga daayo wadadiina ma qaadi karto gaarigiina waa ku dhib way soo cararayaan waxa ku madaxda ugu imanayaan districts, towns and villages for the launch of this public awareness campaign on the Axle Load Control Act, which is being introduced for the first time since the network of tarmac highways was built 40 years ago. علمها الوصف waxay loo geysanayeen wadadaadii nidaamkii wadada calaamadii wadada way kala go'ayeen waxyaabaha wadada ugu can waxay leeyahay kuwaas barnaamijka aad baan soo dhaweeyay hadaan lahay ciidanka nabadgelyada wadooyinka gudoomiyaha hay'adda wadooyinka ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cismaan Sheekh Cabdi oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in ay hay'adahan ay bilaabi doonaan dayactir lagu sameyn doono wadada u dhaxaysa Hargeysa ilaa iyo Burco iyo sidoo kale wadooyinka galbeed ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland baalahaas ma taqaanaa hadii ay ku roon yahay dabada kaga xiran baa dhibaato badan u geysta booyadahaas ay u socdaan biyaha qaada ee ka qaada oo baradle khasaaro badan bay u geysteen waliba inta ay maraan inta kale marka loo eego dayactirkii waxaan ka soo bilownay alxamdulillah halayo waxaan ku joojinaa ilaa iyo Burco oo aad ogtiin qaybo badan oo xagga sheekhiina inay dhiban tahay markaan ku soo noqono nuxurka barnaamijkeenan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay fahamka marka aan eego gudoomiyaha ma taqaanaa gaadiidleyda sida ay u fahamsan yihiin dhibaatada meesha taala duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidil iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Saaxil injineer Ahmed Cismaan Xasan oo iyaguna halkaasi gabagabadii ka hadlay ayaa kulankani soo dhaweeyay sidoo kale fariin u diray gaadiidleyda iyo ganacsatada iyagu baabuurta rarata wadada cusub aan sameeyna anaga macnuuno ma sameynayso laakiin waxa macnuuno sameynaysa wadooyinkii hore oo aan si kaaya bedelay marka taa diyaar baan u nahay imika bisha 9aad baan bilaabaynaa ugu yaraan 10 wadada noogu jira qorshaha haddaad imika nala jaan qaadaysaan diyaar baan u nahay dowlad hoosaan degmada Berbera diyaar baan u nahay waayo waan u baahannahay waan idin baahannahay waa qodobka koobaad weeye dal adduunyadu waxay ku horumartaa ay horumar ku gaadhaa oo lagu qiimeeyaa dalalku inay horumareen waa wadooyinka weyn dalku haddaanu wadooyin lahayn horumar ma gaadho marka waxaan aad u soo dhaweynaynaa in wadooyinka dalkeenu leeyahay lana kordhiyo la ballaariyo kuwa horena aanay gacanta ka bixin ee la ilaaliyo waa qodobka koobaad qodobka labaadna waxa weeyaan wax kasta oo la dhisaa ama la qabtaa haddaanu sharci yeelanin isaguna ma sii jiro oo waxa weeye xeer nidaamyaha weyn leenahay jidadka waxa inta badan dila waxaad arkaysaa jid fiican oo loo sameeyay maxaan ku dhahay askari jiif wax la yiraahdo askariga jiif ay qayb weyn buu ka qaataa burburka maxaan ku dhahdaa jidka qayb weyn buu ka qaataa waxa laga yaabaa tuulo kasta
iyo meel kasta in askari jiifa la dhigay gaadhigii askariga jiifa uu iskaga degayaa wuxuu leeyahay koonaha ka mar u fiirsada meelaha inta badan waddooyinka googo'an waa meelaha inta in askariga jiifa laga sameeyo mashruucani waxaa xukuumadda Soomaaliland kala shaqeyn doona hay'adaha GIZ iyo midowga Yurub waana mashruuc ugu horeeyay ee lagu maamuli doono baabuurta qaada xamuulka xad dhaafka ah Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Berbera